indhaheeda waxaa laga akhrisan karaa farxad ballaaran oo dul hoganaysa. tani waa bilowga geediga ay u galayso raadraadinta caafimaadka lugteeda oo saygeedii ay jecleed uu u geystay nabar dib uga dhigay hayaankii guusha nolosha. amal inkastoo dhaawaca soo gaaray uu ku reebay xanuun iyo murugo habeenno badan sabab u noqday inay keligeed ilmayso, haddana duco dalbashadii rabbi ay ku weydiisatay inuu u furo faraj kheyr qaba iyo daryeel caafimaad ayaa hadda u rumowday, oo waxa ay maanta safar u tahay waddanka Turki, halkaas oo wax looga qaban doono caafimaadka lugteeda. hooyo ayaa markaan waqti la qaadanaysa wiilkeeda. Amal inkastoo safar tahay maanta aadna ay u faraxsan tahay, haddana nafteedu waxa ay ka walwalsan tahay wiilkeeda yar oo ay ka tegayso. hadda garoonka ayaan ku sugannahay. Amal waxa ay ku wajahan tahay dalka Turkiga. intii maanta waxay ii qabteen aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay, waayo maanta shucuurta ma soo koobi karo. wallaahi bilaahi aad ayaan u faraxsanahay. waxaan moodaa inaan caafimaade intaa kadib askarigii dhaawacay oo dowladda u shaqaynayay waan cafiye, waxba uma qabo. ilaahay dartiisa ayaan ku cafiye. waan in salaamayaa dhammaantiin. dadaalkan xagga dowladda waxaa dhexda u xirtay gudoomiyaha arrimaha maaliyadda ee maamulka gobolka Banaadir Ibraahim Cumar Dheere. wuxuu u soo bannaan baxay sidii Amal ay ugu dhoofi lahayd dalka Turkiga una heli lahayd daryeel caafimaad oo dhammaystiran, waana tan Amal u rumowday riyadeedii. Amal maanta oo tahay taariikhda 18 bishii labaad 2020 waxay u hesheen nasiib inay hesho gargaar caafimaad kadib markii ay guddoonka sare ee gobolka Banaadir ay garteen inay Amal ay caawiyaan. Amal sidaad arkaysaan waa gabar yar da'yar ubaxa soo koraysa dhalinyaro ah dib ku dhacay. xaq bay u leedahay Amal inay caawino. waxaan rabaa halkan inaan baaq ugu diro Soomaali weyn meel walba ay joogaan. Amal waa gabar Soomaaliyeed. Soomaalinimo ayaa nagula keenay, Soomaalinimo ayaa ku caawinay. Soomaalida dhageysanaysa waxaan ka doonaynaa Amal inay caawiyaan, gaar ahaan Soomaalida degan dalka Turkiga. waxaan ka rajaynaynaa Amal inay gacan weyn u fidiyaan. waxaan idin rajaynayaa guul. dhaqanka Soomaaliyeed ee wanaagsan ee dadnimada iyo walaaltinimada iyo wax walba leh inaan wax iskula qabanno aan is caawino ayuu nafarayaa. marka cid kasta oo Soomaaliya oo damiir leh oo na daawanayso balantana waa in la caawiyo Amal. Amal oo qoslaysa oo faraxsan ayaa ka wariye ahaanteeda ii ah muuqaal farxadeed, waxaana maanta oo sogootinayo iyadoo aan karin inay lugteeda ku socoto iga farxad badnaan doonto kulankeena xiga iyadoo cagaheeda ku socota. Maxamed Yaxya Jinow, 5 Somali TV, Muqdisho.